abwaan Axmed Siciid Diiriye Afkuriyo oo muddooyinkii u dambeysay ku xanuunsanayay magaalada Boorame caasimadda gobolka Awdal ayaa ugu horreynba waxa uu ka hadlay xaaladiisa caafimadeed iyo duruufaha ku gadaaman qoyska. waa kan abwaan Axmed Siciid Diiriye Afkuriyo oo xaaladiisa caafimaad ku tilmaamay xaaladda caafimaad hadda waan fiicanahay waxaanuunaho hadda meel iga raacaysay xanuunaysa ma laha laakiin duruufo kale oo tabardaraan iyo weli naafadii baa ku jirto waan socon kari lahaa ma socon karo. sidoo kale abwaan Axmed Siciid Diiriye Afkuriyo ayaa hoosta ka xariiqay inuu hadda wiilka uu dhalay ka tahriibay isla markaasina hadda uu gacanta ugu jiro oo majafe aniga duruuftada tabardarraantaydaas iyo inankii iga tahriibo ku xiran weli Liibiya oo aan weli cid gargaarada helin oo halkii ku jira halkii hore waan ka sii diray meel kale lagu qabsaday haddana markaan lacag kale doonaya 3,000 lacag meelahaas si aan aniga jiifayda ma lacag buu hayaa marka dhibka igu meersanay waxa kamid ah kaas u weyn aniga duruuftada kale taageeri mooyaan xanuun kale ma hayo halkay waa sida kala caafimaadka uu iska xaalka reerku iska yiriyo waxa taalka caruurta dadkii mas'uulka aan ka bukaan gideed ilaahay amarkii uu iska nooca adduun waxaan leeyahay hanka tabaryar gargaar buu u baahan yahay waxaan u baahanahay maanta cid aad iyo taakurayso oo duruufta dhibaato ee dhaqaale iga saartay inaan kala xiriirka sii daay meesha mushkilada igu hareeraysan habeenada saacado dhiig ku xiran isaga nixnees ayaan u baahnay ciidiga gurmad. abwaan Axmed Siciid Diiriye Afkuriyo oo hadalkiisa sii wata ayaa waxaan wax ka weydiiyay ballanqaadkii oo uu fuliyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici oo ku booqday hoyga uu ka tankeeyay magaalada Boorame isagoo sheegay in xaaladiisa caafimadeed loo qaadi doono dalka dibadiisa waxauna ku jawaabay abwaanku wali waxa kama soo warkarin wali waxa kama soo tagarin وسوقيا ولو سوقيسا ولي ما هي كم زمان طبعا ولا هي مسلم كهو لباساسو كل ريقة تهريبية نفسه تغير إيه هؤلاء وقتها تغيره أنت بقى مكاني والله أنت وحيوقع كره يقبل إلى أن أجل حصلها كثير. بهالني حسوسية بقشة هذا الذي وكشري madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici booqashadii uu ku tagay abwaan Axmed Siciid Diiriye Afkuriyo oo xaaladiisa caafimadeed ilaa hadda laga dayrinayo. Adeenku bilaabmay wuxuu ugu jiraa qorshaha sanadkan dadka abwaanada maartay dhowr oo xanuunsanaya oo loo diray caafimaadka insha Allah la qabad la qabo kala duwan la qabo كوسي ولا نجت ولا وجهي هذا طلبات كتير تي كراسة قاعد حتى لو وصل دروات عليه تي ودوت على شهر مكة وسيدي هي ما توتاقتي إن شاء الله وحلو وقرب ضد بعض وقرب طلع وشان وساردي ساعة سوق بسوق بالحتوى والنوك يعني كلنا حلو قريب عنده وعلى بقالية إلى قف كدوينيو مرة بعفان إلى بوجه إلى عفان سريع على السينة وإنه إلى من وقبرنا لما انتبه. balse hadalkaasi ka soo yeedhay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Injineer Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici ayaa ahayd waxna ha u qaban qowdana maqashii. hooyo Isxaaq Xasan Warfa oo dhashay wiilkani tahriiba hadda Makafe ku jira ayaa sidaasi si la mid ah iyaguna ka dareen celisay xaalka adag. waxa weeyaan saddexdii xal afarta habeenimo inta la soo garaaco ayaa dhigta la saaray isagoo hooyaya waxaan ku xal afartiisa hooyaya dhigta la saaray halka baan ku dhacay ilmahayga ma naxayso ilmahay ma soo gasho ilaahay dartii wixii ilaahay ka baqay shahaadanayo walaalahayga islaamka waxaan ka codsanayaa inaan la iga soo gargaaro ilmahayga beerkayga ku xidhan saxaraha dhexdiisa ilmahayga naxayn ayaan ilaahay weydiisanaya ummadda islaamka meel kasta joogto inay iga soo gargaarto ilmahayga iga soo saarto saxaraha afarta habeenimo saddexda habeenimo ayaa la soo garaacaa dhigta la saaraa wadna xanuun baan qaaday waan xanuunsanayaa ilaahay dartii يا يجسوا كرجال. شو صوت طوبو أبوان أحمد سعيد تيري أفكريه
cidna uma maqna ceel looma qodnaa. cabdilrasaaq cumar miicaad cabdirasaaq awliyo shabakada caalamiga ah ee boorama news boorama.